ووربحين كوبان أو كسابسن برلمان كيوكي أو بريتو لقصو بندقية قضية مدح بناني دا سومالي لان wararkii ugu dambeeyay idinka hayo iyo updating yaroon idin hayo ayaan halkan jecelahay inaan ka soo gudbiyo kadibna aynu insha Allah ta'ala berrito aynu halkaas ugu nimaadno wariye dalmaro idin leh soo dhawaada dhamaantiin saaxiibada qaaliga ah barnaamijkeenan ayaan jecelahay in uu yahay jawaab aan u hayo shacabka dad badan baa daafaha caalamka igala soo xiriiray oo arrinka iga wareystay oo yiri waxaan rajaynaynaa in berrito arrinkan maxaa ka jira in baarlamaankeena berrito arrintii qadiyada lagu soo bandhigayo baarlamaanka UK arrinkaas ayaan jecelahay warbixinihii ugu dambeeyay qaabka ay noqonayso in aynu dhamaanteenba aynu ka wada hadalno isla markaana warbixinihii ugu dambeeyay ka siiyo khadka si fiican in la ii maqlaayo suulka ii soo taaga haddii Ilaahay u raali ka noqdo hadduu codku hooseeyana waxaad tiraadaan dalmaro codku hooseeya kor u qaad insha Allahu ta'ala aad baan idin salaamayaa dhamaantiin saaxiibada qaaliga ah barnaamijkan isgaarsiiya oo share gareeya si aynu mataqaanaa ugu diyaar garowno maalinta muhiimka ah ee berrito oo ah maalin insha Allahu ta'ala salaasa ah 18 bisha January sanadkan 2022 ما شاء الله تبارك الله مقالة لندن أيان هذا كسوقنا هاي وقت كان حاضر كان خلاص واحد ليو وحنا نشوف برتمها المقالة ده وحنا إمك الله سودي أرجعيني هدي له ورالو وكان غضاء بل وربحين تاسي كساب سن برلمان كيوك ودي أرجعيني يا موشين مركز لقاها الله يقضي يد مرحبنا هني ده سومالي لان إن صاحبة قالقة ميل ولا ضافها عالم كاتشوكتان وهذه السلامة يا ووريد المر وكسوق مقالة لندن oo idin leh wararka waqtiyadan oo kale waa marka kaliya ay macnaha sameynayso in dadka wax loo soo gudbiyo macluumaada adiga goor dadkuna waxay jecel yihiin inay wararka ka helaan meelaha saxda ah sida la ajligeed ilaa boqolaal qof baa ila soo hadlay warkaasi ma jira warka maxaa ka jira baarlamaanka UK miyaa la inaga doodaya adaba maadaama xoga aad soo badateen imika inta kalena waxaan rajaynayaa inuu mar kale u gaari doono warbixintaan idin hayo kadibna insha Allah ta'ala saaxiibada kale ee u gaarana insha Allah waxaan rajaynayaa iyaguna in ay barnaamijka celiskiisa ay daawadaan si kastaba ahaatee daawadayaal berrito oo ay tahay 18ka bisha January sanadkan 2022 xarunta looga aramiyo ama golaha sharci dejinta wadanka Britain waxa lagu soo bandhigayaa in dood markaa ku saabsan sidii dawladda Somaliland iyo nationka Somaliland ay aqoonsi buuxa uga heli lahaayeen dalkan boqortooyada Ingiriiska adaba in warbixintan waxaad aragteen warbaahinta kala duwan oo si qaada dhigaysa in waxaanan mar dhaweyto ilaa xalita aan wada hadlaynay saraakiisha safaaradda Somaliland oo hogaaminayay safiirka Somaliland arrinkanina wuxuu soo taxnaa ilaa iyo 4 bilood ayaa imika laga shaqeynayay inuu arrinkaasi uu hirgalo waana war jira waana war sax ah waana war farxad leh waana war ay ka soo shaqeeyeen inta aqliga u saaxiibka ah adaba in runtii shacabka Somaliland waa dad iska qalbi wanaagsan waa dad jecel horumarka qarankooda marka arrinkan waxa ogaa oo kaliya diblomaasiyiinta safaaradda oo in uu safiirku ugu horeeyo wasiirka arrimaha dibadda Somaliland iyo wafdigiisii oo ay adna ka mid tahay inta u dhaqdhaqaaqda xuquuqda Somaliland ee dalka boqortooyada Ingiriiska degan waxay ahayd arrin top secret ah oo la doonayay marka in berrito kale sida bamka lagu qarxiyo cadawga Somaliland si uu hurdada u diido laakiin nasiib wanaag waxa jira shacbigeena Somaliland dad akhyaar ah oo marmarka qaar marka ay helaan wararka xasaasiga ah farxad ishayn kari waaya sida la ajligeed in safaaradda iyo dhammaan diblomaasiyiintu waxay jeclaayeen in sida bamka mar lagu soo dhex tuuro arrinkaas laakiin alxamdulillah rabbil caalamiin mar haddii ay soo shacbaxday waxay noqotay markaa in shacabka lala wadaago warbaahinta qarankuna runtii waxay sugaysay in markaa shacabku markaa loo diyaar gareeyo arrinkaas si fiican loogu soo bandhigo warbaahinteennuna aad bay u qaadaa dhigtay wax dhibaato aana ma laha dee kulleyba laakiin had iyo goor waxay Somalilandarka u fiican arrimahooda sirta ah ama diblomaasiyadda inay ilaaliyaan qof kasta oo muwaadin waajib waxa ku ah haddii aad ogaato sir ay qaranku u leeyahay in aad markiiba aanad saxaafadda la wadaagin oo farxadu ka tira badan ujeedada ugu weyn ee laga leeyahay ama arrinkan loo daboolayay ilaa iyo intuu ka soo shacbaxayna waxay ahayd in aan mataqaana cadawga Somaliland aanu fursad u helin
وأرمها سومالي لان فقارياش عالم كمركا لقاها الله يعانو عرقلات كسامين أولريدنا وحا ورركو نقصو قاريان تانية انتي اي سوشا بحضي أرنكاس إنو إيميل الذي أدوغو أي أدرايين بارلمانكا يوكي وآدو فربدين هاي سومالاندر كانوا وحا لقرباه إن إذن كنا أيضا درتان إيميل تاغيرا وأدكم موجينيسان إن قرانمدينا أيضا داعد كتيهين إسلا مركان حق كليديهين إن أدونكو إذن أقوان صدو على كل حال برنامج وحو soo taxnaa muddo 4 bilood ah sida safaaradda iyo diblomaasiyiintu ay sheegeen waxaana hormood ka ahaa safaaradda Soomaaliland ee kuleeda UK in arrinkan waxa soo bandhigaya barrito oo dooda la horkeenaya mooshin ah aqoonsiga Soomaaliland inuu yahay kama dhibcaan waxaana hogaaminaya William Gave oo ahaa in xoghayihii gaashaandhigga wadankan Ingiriiska waxaanu ka mid yahay xildhibaanada baarlamaanka wadanka UK isagoo kaliya maaha saaxiibada qaaliga ah ee xildhibaanada baarlamaanka UK ay ku leedahay Soomaaliland waxa lagu qiyaasaa imika inay 45 kor u dhaafeen waa xildhibaanada taageersan qarannimada Soomaaliland marka la eego dhowr ka boqol ilaa 45 xildhibaan ayaa jira oo Soomaaliland qadiyadeeda u ololeeyay oo jooga wadankan Ingiriiska waxaanay intaas oo dhami ay isku raaceen in ay aqoonsiga Soomaaliland uu yahay mid degdeg oo emergency ah haddaba barrito waxay u dhacaysaa doodu amaba soo bandhigistu waa mooshin marka lagaga dalbanayo qaranka Soomaaliland inuu aqoonsi buuxa u ka helo caalamka gaar ahaan dalkan boqortooyada Ingiriiska uu hormood ka noqdo xildhibaano ka tirsan baarlamaanka UK ayaana arrinkaas soo abaabulay waxaana si wada jira ay wada tashi dheer oo dawladda Soomaaliland ay ka mid ahayd ayaa ka mid ah waxaanay daba taxnayd safarkii wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliland uu ku yimid dalka boqortooyada Ingiriiska waana arrin diblomaasiyadeed oo muddo 4 bilood ah socotay oo ay safaaraduna ay lafdhabar ay u ahayd waxa kale oo iyaguna ka qayb qaatay diblomaasiyiin kale oo iyaguna degan wadankan Ingiriiska xildhibaano iyaguna degan gobolada dalkan waxay ahayd arrin aad u ballaaran oo ay ka shaqeeyeen dad aad u tiro badan oo diblomaasiyiin Somalilander ah iyo diblomaasiyiin dalkan boqortooyada Ingiriiska arrinku wuxuu dhacayaa in mooshinka la soo hordhigo dalkan UK dawladdiisa iyo baarlamaankiisa si markaa si degdeg ah Soomaaliland ay aqoonsi caalami ah beesha caalamka uga hesho gaar ahaan dalka boqortooyada Ingiriiska durbaba waxa bilaabmay caawa magaalada London inay dadku ay aad isu abaabulayaan iyadoo ay jirto sidaad ogtihiin barnaamij lagu taageerayo ay dadku ay aad u jeclaayeen inay ogaadaan laakiin maadaama arrinku ahaa arrin diblomaasiyadeed oo la dadayo waxay ahayd markaa inaanay shacabku aanay fursad u helin isku abaabulaan si ay markaa barnaamij uga hor dhigaan barrito oo kale baarlamaanka wadanka UK laakiin wax diidaya ma jiro inaad calankaaga intaas ka soo qaadato aad si official aan ahayn aad halkaa iskaga istaagto oo iyadoo taasi uma baahna waxa barnaamij wuxuu u baahan yahay marka dad kumaan kun ahi ay sameynayaan ay u baahan yihiin cadowga Soomaaliland sidaad ogtihiin maaha oo kaliya kuwa dariskeena ah dawlado waaweyn ayaan jeclayn inay maqlaan horumarka Soomaaliland marka arrin kasta oo diblomaasiyadeed oo Soomaaliland ku saabsan waqtigan xaadirka dawladda iyo wasaaradda arrimaha dibadda iyo safaaraduhu aad bay u daboolaan una ilaaliyaan macnaheeduna waxa ay tahay haddii aad arrimahaaga diblomaasiyadda la ogaado dee waxa weeyaan cadowgaaguna waxyaabo kale ayuu samaynayaa waxaanu leenahay dadka Soomaalida ah ee u diraya emailada aflagaadeynaya xildhibaanada baarlamaanka UK waxa aanu idin sheegaynaa inaydan arrinka aynu faraha aydan kala baxdaan waa arrin fool xun wax allaale laba dal oo isku darsaday oo Soomaaliland iyo Soomaaliya ayaa la kala oran jiray marka wax idinka khuseeyo male wax dhibaato oo idinku keenaysa aqoonsiga Soomaaliland male marka waxaan u sheegaynaa in aydan iska daysaan cayda iyo aflagaadada aad u geysanaysaan baarlamaanka UK runtiina ma aytama runtii cidina idinma joojinayso dalka boqortooyada Ingiriiskuna already waa kaasoo barrito waa laga doodayaa arrinkii marka laakiin shacabka Soomaaliland waxaan u sheegaynaa inay feejignaadaan arrimahooda siyaasadda iyo arrimahooda diblomaasiyadda iyo arrimahooda in ay xafidaan oo ay runtii ay iska ilaaliyaan inaanu cadowga aanu helin tanoo kale imika warbaahinta qaranku ilaa caawa ilaa maanta ilaa shalayto si fiican ugamaano hadal sababtoo ah ilaa dee ay si fiican hawshu ay isugu daba dhacayso waxaanu islahayn bal dadweynihiina farxadda marka banku uu qarxo loo soo daayo laakiin nasiib wanaag alxamdulillah mar hadduu warku isgaadhay arrintaa bishaarada ah baarlamaankana waa lagaga doodayaa dooduna waxa la siiyey waqti aad u fiican
waxaana dhici doonta in ay shacabku ay aad iyo aad doodaasi ay uga qayb galaan waxaanay noqon doontaa in mid baarlamaanka si live loo soo daayo waxaanan kaloon idiin sheegaynaa berrito subaxnimada 12 duhurnimo waqtiga UK ama 3 galab waqtiga Hargeysa in studio TV-ga qaranku wuxuu u guurayaa safaaradaynu markaa barnaamijyo aan ku soo sameeynaa bal qaabkii ay arrinkan ku soo bilaabmay xildhibaanadii ayaa inoogu iman doona qaarkood waxaan rajaynaynaa barnaamijku inuu si live ah oo berrito oo dhan aynu ugu jirno haddii Ilaahay raalli ka noqdo khadka taleefankana aynu ku soo wada xidhiidhno innaga oo markaa taageerada iyo hambaliyada aynu u jeedinayno baarlamaanka UK iyo dooda halkaa ka dhici doonta aynu dhammaanteen aynu ka wada qayb qaadan doono berrito studio TV-ga qarankuna wuxuu u guurayaa magaalada centerkeeda waxaan isku taxaluujinaynaa baarlamaanka laftigiisa inaan live ka soo galno waxaan isku taxaluujinaynaa inaanu xildhibaan Gavin William iyo dhammaan xildhibaanada kale waraysiyo aanu la yeelano waxa aan iyadana inoogu jirta in intellectual badan oo Somalilander ay berrito ay ka qayb qaadan doonaan kulankaas haddaba kulankani muxuu kaga duwan yahay kulamadii hore ee baarlamaanada ama doodaha Somaliland runtii wuxuu kaga duwan yahay laba arrimood waa markii ugu badnayd ee xildhibaano intaas soo dhami ay isdaba taageen amaba ay soo jeediyeen arrinka ajandaha Somaliland in miiska la soo saaro isla markaana ay noqoto arrinta ugu horeysa ee dawladda Britain siyaasadeeda arrimaha dibadda ee dhinaca Afrika ay ku salaynayso waxa kale oo kaga duwan yahay waa mid ay runtii isugu tageen xildhibaano aad u tiro badan oo ama councilska haadaan ama golayaasha deegaanka Britain haadaan يعني waxa weeyaan dad aad u tiro badan ayaa arrinkan xiisaynaya dabadana ka wada waa marka kale ee dawladda Britain waxay ka mid tahay dawladaha aadka u xiisaynaya inay Somaliland cilaaqaadkii ay la lahaayeen ay mar kale iyo maxkamiyadii in ay dib u soo nooleeyaan iyadoo hadda dawladaha waaweyn ay isku haystaan marinbiyoodkan badda cas oo Shiinaha uu hungureynayo Mareykanka uu hungureynayo Ingiriiska laftigiisa ku jiro marka waa arrin diblomaasiyadeed oo aad u sareysa iyo xudxudasho aad u sareysa in meesha ay ka socoto waxaanay kaloo ay ku fiican tahay oo arrinkan ay ku soo beegmay waa markii ugu horeysay ee arrimaha geeska Afrika ay dawladda Britain si rasmi ah ay baarlamaankooda looga doodo iyadoo oo aad ogtihiin inay dalka Britain uu ka baxay ururka midowga Yurub waa siyaasadii ugu horeysay iyo signaalkii ugu horeeyay ee dirayaan inay geeska Afrika siiba wadanka Somaliland ay aad u xiisaynayaan berrito adigu 6 maqribnimo ilaa 5 galabnimo ayay live u soo gali doonaa dooda ka dhacaysa baarlamaanka UK waxaana dhici doonta in dooda kadib falanqeyn aanu ka sameeyno berrito marka waxa inoo ballana oo aan warbixinteeda ku soo gabagabeynayaa inaad u diyaar garowdaan barnaamijka aadka u fiican ee qiimaha badan ee lagaga dooday qarannimada Somaliland baarlamaanka UK waxaanu noqon doonaa dood aad iyo aad u qiimo badan waxaana daba socota arrimo kale oo diblomaasiyadeed oo aad u fiican arrinkaasi wuu jiraa safaaraddu way ogeyd 4 bilood ka hor baa dawladda Somaliland la wargeliyay innaga dhexdeedna baa qolo inaga mid ah xoogaa jeclaysatay warka inay markiiba sii deyso inaga fakaday cadowgeennina caawa runtii ma seexanayo diyaargarowgoodana ilaa shalay buu warku soo baxay diyaargarow fiican may samaynin sidaa laajiga baa wararka diblomaasiyadda loo baahan yahay mar walba inay shacabkeennu ay aad iyo aad u ilaashadaan qarannimadooda meel kastoo aad joogto war muhiima haddaad maqasho macnaha markiiba meediyada ha kula cararin sug ilaa iyo inta mataqaanaa dadka ehelkeeda ah ay ka hadlayaan berrita ballanteen waxay tahay 12 duhurnimo waqtiga UK TV-ga qaranka waxaan u guuraynaa xarunta safaaradda halkaas inoo ballana khadka taleefanka halkaas aad nagula soo xiriireysaan khudbad marka ay ka socoto baarlamaankana live baynu u soo gudbinaynaa TV-ga qarankana live baynu berrito dhan uga baxaynaa hal barbarkay ka baxdaa waa bakayla qaleen runtiina waxaan idinku bishaaraynaynaa wararku intaasoo kaliya aanay ahayn ay aad u badan yihiin waa wariye dalmar oo idin leh barbarkay ka baxdaa waa bakayla qaleen haddaad calanka soo qaadato baarlamaanka hortiisa berrita yara timaadana laftigeedu wax dhibaato ah male laakiin waxa la diidayaa mudaharaad iyo isu soo bax aad u ballaaran aad baan idiin salaamayaa waad wariye dalmar oo idin leh waa inoo berrito 12 duhurnimo safaaradda Somaliland sidaa iyo nabadgelyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh